didiinka wuxuu ka mid yahay xayawaanada kuwooda ugu cajiibsan mahmah ayaa loo soo qaataa markii maalan qofka aadka u gaabiya markii laga hadlaayo Soomaalida waxay tiraahdaa didiin miyaa tahay maxaad u gurguurinaysaa didiinka wuxuu ka mid yahay marka xayawaanada kuwooda la yaabka leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala asagoo ka hadlaayo xayawaanada noocyada ay kala leeyihiin xagga socodka ayad quraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هذا دينك وحو كمid yahay zawaaxifta kuwa loo yaqaano oo xayawaanada kamid ka ah kuwa xamaaratada ah ee gurguurto oo xabadka ku siqo ayuu kamid yahay